waxaana wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan oo xiliyadan oo kale aad daawataan maracadda show ayaad ka daawanaysaan qaybaha hore ee sheekada waxaad kusoo ogaateen macluumaadyo dhowra qaybtana waxay inoogu bilaabanaysaa fariid oo aan hadalkii dhammaynin ayaa waxaa yaara soo gaartay fariin ka timid dilaaga ubaxa gaduudan waxaanay ahayd fariin aad muhiim u ahayd kana muhiimsan dhammaan fariimihii hore ee dilaagana uu usoo qorayay yaara dilaaga ayaa wuxuu soo diray sawirka amiiradda oo ku fadhisa kursi alwaax ka samaysan gadaasheeda waxaa ka muuqday maktabad halka amiiraddana gacanta uu saarnaa ubax gaduudan yaara ayaa markii sawirkaasi aragtay dhankii iyo daariq u jeedisay iyadoo tusisay sawirka amiiradda daariq ayaa markaasi kadib madaxa qabsaday ilbiriqsiyo kadibna sawirka ayaa meesha ka baaba-ay sidii in la tirtiray oo kale daariq oo markaasi aad u cadhaysan ayaa taleefonkii yaara gacanteedii kasoo bixiyey waxaana uu ku yidhi waxaan doonayaa inaan teleefoonka baaris fiican aan ku sameeyo si aan u ogaado halka sawirkaani laga soo diray yaara ayaana markaasi ugu jawaabtay iskuma dayayo in aan ku joojiyo balse waxaan sharad ku galayaa in aadan waxba soo heli doonin ma heli doontid wax raad ah oo ku saabsan dhambaalkan waxlama dhaanto salaanta bilowga oo kale fariid oo aana fahmin hadalka yaara ayaa weydiiyey waxa ay kala jeedo balse yaara ayaa u sheegtay inay kala jeedo bilowga ciyaarta cusub ee ugaarsiga daariq oo taxliilin ku waday hawsha ay wadeen ayaana markaasi hor istaagay boor derbiga ugu dhegsanaa waxaana boorkaasi ka muuqday dhammaan dadkii la dilay iyo qof walba oo la dilay qofka ka dambeeya dilkiisa misna dilaaga muuqaalkiisa isku ekaysiinaya qaybta sare ee boorkana waxaa ku sawirnaa sawirka nin hooskiisa oo aanan wejigiisa loo jeedin iyadoo oona ay ku hoos qornayd dilaaga muuqaalkiisa bedel daariq ayaana markaa inta sabuuradda dhankeedii uu u dhaqaaqay waxa uu yidhi aan bal dib ugu laabanno xogta ilaa iyo haatan aan helnay dilaaga aan raadinayno waa mid muuqaalkiisa bedela wuxuu awoodaa muuqaalkiisa inuu bedelo uuna u bedelo qaabka uu doono qofka uu doonayo inuu dilo iyo qofka uu rababa bedelistaasina wax walba ayay qayb ay ka tahay xitaa faraha qofka ayuu isaga ekaysiin karayaa dilaaga mar walba uu qof uu dilayana weji cusub ayuu la yimaadaa mana u muuqato inuu hal weji oo laba mar qof uu uga soo muuqday si uu dilo baaritaan aan ku samaynay dadka isku ekaysiinayana wax natiijo ah kama aanan helin mana aanan helin wax xiriir oo iyaga iyo dilaaga ka dhexeeya sidoo kalena yaanan iloobin in dilaaga uu qabiir uu ku yahay dhanka teknolojiyadda sidoo kalena uu awooddu u leeyahay raad walba oo isaga ku saabsan in uu tirtiro intaasi markii uu yidhi kadibna in cabaar ah ayuu yara aamusay haddana waxa uu sii raaciyay hadal kale oo dheer oo waxa uu yidhi waxaa jirta arrin kale oo muhiim aad u ah waayo aniga waxaan in badan aan isweydiiyey sidee awooddu ugu yeeshay dilaagan inuu muddada intaasi la-eg uu isqariyo isaga oo aanan wax raada ka tegin waxaana moodaa inuu dilaagani u muuqdo mid mar walba tallaabo naga horeeya balse haatan ayaan fahmay arrinka waxaana ii soo baxda in dilaagani uu annaga nala joogo baaritaankana uu qayb uu ka yahay tallaabo walba oo aan qaadaynana uu la socdo si uu tallaabada u qaadayo falka aan samaynayno ugu daba tagana mar walba uu nooga horeeyo yaara ayaa kadib hadalkii qaadatay oo waxay tiri arrinta si fiican uga fakar kadibna waxaad arki doontaa inay macquul ay tahay midaan waayo habkaani si uu u sameeyo waxa kaliya u baahan yahay ayaa waxay tahay in dilaagu isku ekaysiyo muuqaalka qof booliis ah kadibna uu saldhigga uu dhex galo sidaasina uu ku ogaado xogta uu u baahan yahay isaga oo ciidana aysan ka shakin goobtan uu isaga soo baxo fariid ayaa markaasi kadib hadalkii qaatay dhankiisii oo waxauu yidhi waa warahey waa macquul midaasi sidaasi uma aanan fikirin walle anigu tani haddii ay run tahayna wax walba way isbedeleen markaasi waayo waxay ka dhigan tahay in dilaaga uu qayb uu ka yahay guutada u xil saaran raadinta amiiradda yaara ayaa markaasi kadib hadalkii qaadatay oo waxay tidhi waa fursad uusan marnababa dilaaga uusan dayici lahayn midaas yaara markii intaasi ay tiri kadibna inta ay in cabaar ay aamustay ayaa haddana waxay sii raacisay hadal kale oo waxay tidhi muhiim ma ahan inuu qayb uu ka yahay guutada baarista gaarka ah ee amiiradda wadda waayo guutada biisigas ammaankeeda si adag ayuu u sugan yahay qof walbaana dhaqdhaqaaqiisa waa lala socdaa tanina waxay ka dhigan tahay gelitaanka guutadaasi inay tahay mid adag balse siday doontaba ahaatee waa hubaal in uu baarista uu la socdo waddo kastaa ha u mara waxaaba macquul ah in uu xogteenna uu la socday tan iyo markii hawshaan aan bilownay daariq ayaa markii yaara hadalkaasi ay tiri kadib waxa uu yidhi dilaagan dhexdeenna ayuu ku jiraa oo horteenna buu ku shaqaysanayaa waana hubaa inuu wakhtigaani uu nagu qoslaayo fariid oo yaaban misna madaxa haysta ayaa intaasi kadib waxa uu ku fadhiistay kursigiisii uu u dhowaa oo meesha uu yaallay waxaana uu yidhi tan waa sheeko iga weyn aniga wayna ka weyn tahay wixii hore oo aan ku fikirayay ma aan sheeko caqligayga uu xamili karayo
intaasi markii uu yidhi kadib inta daariq uu kusoo jeestay ayaa wuxuu weydiiyey su-aashan: maxaad kala jeedaa hadalka dilaagan dhexdeedna ayuu ku jiraa? ma waxaad kala jeedaa haatan ayuu nala joogaa dilaaga? daariq ayaa markaasi weydiiyey fariid wuxuu su-aasha uu kala jeedo, balse fariid ayaa ku jawaabay: suuragal ma ana in dilaaga midkeenna uu yahay. waa arrin xasaasi ah sida ii muuqata, balse waa arrin isweydiin mudan, waana sheeko ka argagax badan dhammaan sheekooyinkii aan horey aan usoo arkay, haddii tani ay xaqiiqo ay tahay dilaagana oo nagu dhex jiro. daariq ayaa markaasi kadib hadalkii qaatay oo waxau yidhi: kooxdaani waa koox qaab sir ah loo dhisay, mana jirta cid og hawsha ay halkaani ay ka qabanayaan oo aan saddexdeedna ka ahayn. sidoo kalena dhammaanteen halkan ayaan goobjoog aan ahayn oo aan ku sugnayn markii dilaagana aan la hadlaynay. taasina waxay annaga inaga saaraysaa shakiga, waxaana ay muujinaysaa midkeen inuusan dilaaga ahayn. yaara ayaa kadib hadalkii qaadatay oo dhankeedii waxay tidhi: waa hadal macquula, balse waa hubal in dilaaga uu isla tabtan uu samayn lahaa si uu noogu qanciyo inuusan isaga dilaaga ahayn. daariq ayaa markaasi su-aal weydiiyey yaara oo waxauu yidhi: maxaad kala jeedaa hadalkaaga? yaara ayaa kadib hadalkii qaadatay oo waxay tidhi: adiga qudhaada mardhow waxaad sheegtay in dilaaga uu tiknolojiyadda uu qabiili ku yahay. taasina waxay ka dhigan tahay arrimaha caynkan oo kale ah in agtiisa wax fudud ay ka yihiin. waxaana macquul ah inuu ogaaday qaabka kooxda u shaqaynayso isaga oo taleefanadeenna basaasay. sidoo kalena waxaa macquul ah in sheekada dhambaaladan uu soo diray xilli horeyba uu sii habaystay. ma garanayo, balse waa macquul. markaasi kadib daariq ayaa wuxuu yidhi: jaxiimo noocee ayaad ku dhex nooshahay adiga? ma og tahay hadalkaadan inuu kallifayo xitaa inuu qof walba naftiisan uu ka shakiyo? yaara ayaa markaasi kadib hadalkii kusoo laabatay ee waxay tidhi: maya, aniga hadalkan uma aanan qasdin in midkeen dilaaga uu yahay, balse keliya waxaan ka fikiray suurtagalnimada heerka uu gaari karayo caqliga dilaagan iyo inaan wax walba aan kasii fikirno. daariq ayaa markaasi kadib waxuu yidhi: balse aniga waxay ila tahay hadalkaaga inuu sax yahay, dilaagana uu dhexdeenna uu ku jiro, xaalkeenana uu ka warqabo oo uu nala socdo, sidoo kalena uu og yahay wax walba oo aan samayn rabno. annaguna dilaagan waan gaari doonaa, gacantana waan kusoo dhigi doonaa, balse marka hore waa inaan gacanta aan ku dhignaa duntii nagu hogaamin lahayd isaga. intaasi markii daariq uu yidhi ayaa waxa uu ku jeestay dhanka iyo fariid isaga uu ku yidhi: maadaama aad ii sheegtay inaad og tahay waxa uu yahay qofka muuqaalkiisa beddesha, haddaba ii sheeg sidee lagu ogaan karayaa qofka dadka dhexdooda looga sooci karayaana? daariq markii su-aashaasi uu weydiiyey fariid ma uusan jawaabin, isaga oo indhataag uu ka soo haray oo dhanka iyo daariq eegaya. markaas ayaa daariq mar kale waxa uu yidhi: haddii su-aasha qaab kale aan ku weydiiyo, sidee qofka muuqaalkiisa oo bedelo loogu qasbi karayaa inuu soo muuqdo? ma waxaa jira waxyaabo suurtagelin kara in muuqaalkiisii hore uu kusoo laabto? fariid ayaa kadib hadalkii u jawaabay daariq oo waxa uu yidhi: hadda ayaan ku fahmay. ma waxaad hadalkaada kala jeedaa meesha uu ka jilcan yahay dilaaga muuqiisa beddesha, kuna qasbi karaysa inuu muuqiisii hore uu kusoo laabto? hagaag, ma huba su-aashaada jawaabteeda, balse waxaan horay aan u maqlay in xanuun uu ku qasbaayo qofka muuq beddesha inuu muuqiisii hore uu asal ahaan uu dib ugu soo laabto. fariid markii sidaasi uu yidhi oo hadalkii intaasi uu marinayo ayaa daariq fadhigii uu ka kacay, waxaana u jeestay dhanka iyo fariid. kadibna waxa uu ku dhiftay dharbaaxsho aad u xoogan iyo feer isla socday, waxaana ay kaga dhaceen fariid afkiisii iyo wejigiisii. markaas ayuu daariq dib ugu soo laabtay halkii uu fadhiyey, xilli fariidna afkiisa dhiig xoogan uu ka baxayay. yaara iyo fariid midnama uusan fahmin waxa uu daariq uu samaynayo. markaas ayay yaara iyo daariq iyada oo la yaaban waxay weydiisay su-aal ahayd: daariq, maxaa kuugu dhacay? ma doqon ayaa tahay? maxay tahay waxaad samaysay? daariq ayaa markaasi waxa uu yidhi: tijaabo ayaan ku waday, waxaana hubinaya haddii dilaaga uu yahay iyo haddii kale, balse marba haddii uusan haatan muuqaalkiisii uusan isbedelin, waxay ka dhigan tahay inuusan isaga dilaa ahayn. yaara oo aada uga carootay markaasi falka daariq uu sameeyey ayaa markaasi inta qalin meesha yaallay soo qaadatay waxay ku tiri: ka waran haddii adiga aan haatan qalinkaan aan jirkaada aan ku taago si aan adigana tijaabo aan kuu marino? daariq ayaa markaasi wuxuu ku jawaabay: waa hagaag, waad samayn kartaan, balse aniga waxaan ka fikirayaa tijaabo midaani kasii fudud, waayo labadeenna waxaa naga dhexeeya xusuuso badan oo aan wadaagno ka hor inta uusan dilaagana uusan soo bixin muddo aada u fog. intaasi markii daariq uu yidhi kadib ayaa waxa uu soo qaatay warqad iyo qalin, kadibna waxa uu yidhi: labadeenna mid walba warqadan ha ku soo qoro xusuus noo gaar ah oo uusan qof kale uusan ogeyn, sidaasi ayaana ku hubsan karnaa inuusan dilaaga uusan ugu dhex jirin labadeenna, midkeenna uusan isaga isu ekaysiin karin. yaara ayaa markaasi kadib waxay tiri: maxay tahay sababtaan u qorayo?
maantoos afka uga sheegno xasuusnoo gaar ah oo aan isku aqoonsanayna haddii ay jirto halkii aan qori lahayn, mise waxaad ka baqaysaa inuu Fariid u ogaado in labadeenna hore aan isugu mehersaneyn? daariq ayaa markaasi kadib wuxuu yidhi maya, hadalkayga midaas kalama jeedo, balse Fariid ayaa markii intaasi uu marsiinaya hadalkii daariq waxa uu yidhi yaa labadiinna macquul ma ahan midaasi, adiga oo yaara ah miyaa ninkan daariq ku mehersanayd? maya waa mustaxiil, midaasi midaan dhici karaynin. markii sidaasi Fariid uu yidhi kadib yaara ayaa hadalkii qaadatay oo waxay tidhi waa xaqiiqo midaasi Fariidow, balse xilli hore ayay ahayd. daariq kama uusan hadlin arrinkaasi oo shib ayuu iska yidhi. kadibna yaara ayaa warqadii soo qabsatay, xog iyada iyo daariq oo keliya ay og yihiin ayayna ku qortay, halka daariqna sidoo kale uu sameeyey. intaasi kadibna mid walba midka kale ayuu warqadiisii u dhiibay. yaara ayaa markaasi kadib warqadii daariq ay u akhrisay, waxaana ay tidhi marnaba aniga kama aana shakin inaad daariqa tahay, waayo doqonnimada qaar ee kugu jirta kaama suusho, mana jirto cid adiga iska kaa dhigi karto. intaasi kadibna dhankii Fariid ayay yaara u jeesatay, kadibna waxay ku tidhi adigana iiga sheekee siduu ahaa kulankeenii ugu horreeyey ee aan xabsiga aan ku qaadanay, waayo dhacdadaasi way ka horreysay kiiska dilaaga, marka si aan u hubsado bal ii sheeg. Fariid ayaa markaasi kadib wuxuu bilaabay yaara inuu ugu sheekeeyo qaabkii xabsiga ay ugu wada kulmeen. markii uu dhameeyey hadalkii oo ay xaqiiqsatay inuusan dilaaga ahayn, ayaa markaasi kadib hadalkii waxaa qaatay Fariid oo waxau yidhi haatan waxaan doonayaa inaan maqlo sheekada labadiinna idin dhex martay iyo xog walba oo ku saabsan qaabkii aad isku mehersateen iyo sababta uu jaceylkiina u dhammaaday. yaara ayaa markaasi kadib waxa ay ku tidhi sheekadaasi waqtigeeda lama jooga haatan. daariq ayaa hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi waa hagaag, haatan waxaan dhihi karnaa kooxdan waa aamin, dilaagana kuma dhex jiro. annagana mar walba oo aan kulanno tijaabo iskuma samaynayno, balse waxaan yeelan doonaa erey sir ah oo cayiman. ereygaasi ayaana mar walba oo aan kulanno isaga gudbaynaa, kuna xaqiiqsanaynaa inuusan dilaaga nagu dhex jirin. ogaadana ereygaasi sirta ah kulan kastaa kadib mid cusub ayaa lagu bedelayaa. yaara ayaa kadib hadalkii qaadatay oo waxay tidhi hagaag waa arrin wanaagsan oo noo suurtagelinaysa halkan inaan si nabadgelyo ah aan uga shaqaysano, balse waxaa muhiima inaan ogaano sidee ayuu dilaagaasi ula socdaa annaga baaritaankeenna. haddii su-aashan jawaabteeda aan helno, guul weyn ayaan gaarnay, taas oo ah inaan gacanta dilaaga kusoo dhigi doono. markii hadalkaasi yaara ay tiri kadib waxaa hadalkii qaatay daariq oo wuxuu yidhi xal waan u heli doonaa midaasi, dilaagana gacanta ayaan kusoo dhigi doonaa. Fariid ayaa dhankiisii hadlay, waxaan rajaynayaa fikradda cusub ee aad soo wado in aysan noqon in goobta baarista dab la qabadsiiyo si aad u fiiriso xanuunka gubashada in dilaagaasi uu soo bixinayo. daariq ayaa markaasi kadib wuxuu yidhi isdaji, ogowna aniga kuma aanan fiirin si aan kuu tijaabiyo, balse fiirkaasi wuxuu ahaa mid aan doonayay inaan kugu dhufto tan iyo maalintii aan kulannay. Fariid ayaa wuxuu yidhi doqon madaxweyne ayaa tahay. daariq ayaa kadib wuxuu ku jawaabay maxaa tiri? Fariid ayaa ugu dambeyntii wuxuu yidhi waxaan ku yidhi maxay tahay tallaabada xigta ee aan qaadi doonno. halkaa inoo joogta qaybta xigta ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.